wujud joogitaanka Turkiga ee Soomaaliya muxuu kaga duwan yahay joogitaanadii kale dawlado kale ee Soomaaliya hore u joogay 10 sano maxay ku soo kordhiyeen Turkiga Soomaaliya uga bedelayeen Sulaiman hada ma sabta su'aal aad muhiim ah saa sheegtay weeyaan oo Soomaaliya Turkiga ka hor tani markaan xorriyadda qaadanay iyo markaan burburka dagaalka soo galnayba wixii ka dambeeyayba waxaa jiray dawlado shisheeye ha ahaadaan Yurub iyo Mareykan ama ha ahaadaan dalalka gacanka ama ha ahaadaan dalalka dariska ah ama midowga Afrika daartida oo Soomaaliya arinteeda loo daba fariisan jiray ama saameyn ku lahaa dawladihii kala dambeeyay oo ku meel gaarka ah iyo mid hadda federaalka oo jirtaba sameynteeda iyo dhismaheeda qayb weyn ka soo qaatay lacag badan ku bixiyay ciidanka hadda jooga amisoomna maalgeliyo oo meesha ku haya Turkidu marka maxay uga duwan yihiin Turkidu waxay uga duwan baan isleeyahay laba u kala qaadi karnaa mid waa sida iyagu ula falgalaan shacabka Soomaalida oo ah inay approach ka duwan kii hore oo toos in shacabka Soomaaliyeed toos loola tacaamulo oo qofkii Turkiga ah mataqaanaa isagoo ama ka socdo hay'ad ama ka socdo hay'ad khaas oo NGO ama ka socdo mid dawladeed isagoo soconayo shacabka Soomaalida la salaamayo oo biyihii qaybinayo cuntadii qaybinayo tababarkii uu sameeyay dadkii markay dhex galaan taa marka waxay abuurtay mid ka duwan tii hore ah in dadka Soomaalida meel kale loo soo mari jiray taas waa qodob dabcan saameyn badan bay lahayd kalsooni bay shacabka Soomaalida ku abuurtay mid kale waxay ahayd in dawladda Turkiga saan hore u sheegay ay dawladda Soomaaliya si toos ah ula tacaamushay oo meeshii loo soo mari lahaa meel kale Soomaaliya dawladda Turkiga dawladda Soomaaliya toos u aqoonsatay ku aamintay lacagta ay bixinayso oo ay toos lacagta markii dawladda Turkiga ay ku deeqdo toos bankiga dhexe loogu shubayay taasoo markaa fiirisid waqtiyadaas warbixinay soo baxay lagu eedeynay Turkiga in Soomaaliya fahansanayn oo ay caadifad wado oo ay ugu dambeyn ku daali doonaan laakiin laga hadda markaa fiirisid ay miro badan dhashay in dawladda Soomaaliya loo arko inta dawlad u baahan sax ceebo badan waa jiraan khaladaad badan waa jiraan isdabamarin badan waa jirtaa laakiin haddana in ay tahay oo laga maarmeyn in si toos loola tacaamulo oo mataqaanaa oo la ictiraaf toos la siiyo arinta kale waxay tahay baan isla waxay kaga duwan yihiin dadka Soomaalidu dawladaha kale oo Soomaaliya soo faragelinayay ama Soomaaliya wax la qabanayay si walba wax u qabtaan Soomaalidu shaki bay ka qabtay waxay u arkaysay reer Yurub iyo Mareykan kuwa aan danahooda ka shaqeynayeen kuwiina guumeystay kuwiina kala qaybiyay dagaalka sokay ay qayb ka ahaayeen dad badan baa u arkay saadarteed kalsooni darro badan baa jirtay oo ku aadan dalalka dariska Ethiopia Kenya Yurub iyo dalalka Carabta intaba iyo Mareykankaba laakiin Turkiga waxaad moodaa in meelo badan uu kaga duwan yahay kuwaas waxa dadka Soomaalida waxay u arkaan inuu Turkigu yahay dal laftirkiisu dhibana u ahaa saan ka warqabno khilaafadii Uthmaaniyiinta khilaafadii Islaamka dadka Soomaalida waxay ku jecleen Turk kamid ah in Istanbul mar ay ahayd caasimadii khilaafada in laftirkooda ay dhibana u yihiin faragelin shisheeye oo khilaafadii ay dadkaasi burburiyeen kala qaybiyeen hadda si Soomaaliya loo kala qaybiyay in khilaafadiina marka inaan moodo historyga inaan wadaagno inaan madluumiin isla nahay oo kale arinta kale oo muhiimka waxay tahay in Turkidu ay yihiin dal muslima oo developing soo koraya waxa weeye siyaasad cusub la yimid caalamka wax la qaybsanaya regional power marka taasna waxay ahayd motivation kale oo shacabka Soomaalida oo arka Turkigu inay yihiin dal muslima oo haddana awood leh oo ay ku tiirsanaan karaan arinta saddexaad oo aad ka muhiimka waxay tahay oo aan in badan laga hadli doono waa booqashadii Erdogan 19 August 2011 uu ku tagay magaalada Muqdisho oo markaas dhowr toddobaad ka hor ashaab laga saaray khatar badan qaatay isaga iyo qoyskiisa iyo dadkii dawladda u sareeyay airportka magaalada Muqdisho marka aan isku haleyn karin marka taariikhdeeda waxay muujinaysay tadxiye aktar cusub oo shisheeye oo Soomaaliya yimid kana duwan actorskii ama dadkii hore shisheeye ee Soomaaliya faragelinta ku hayay marka qodobada la isku daro waxaan dhihi karnaa wax badan ayay joogitaanka Turkiga marka arintaas ayaa waxay siisay maksab shacbi oo taageero shacab siisay iyo dabcan gurmadkii xoogga badnaa gargaarka iyo waxbarasho iyo shirarkii ka warqabna Istanbul inay ka dhaceen Istanbul 1 iyo 2 oo dawladda Turkiga ay qayb weyn ka ahayd marka waxaas dhan marka la isku daro waxaan isleeyahay Turkidu inay in badan inay Turkidu ka duwan yihiin dadkii hore muujinaysa dabcan saa ka warqabtid safaaradii ugu weyneyd ee Turkida caalamka lahaayeen baa xamar ku taal saldhig weyn oo tababar ciidan baa xamar ku yaala oo laga furay qunsuliyad baa ku taala Hargeysa
shirkadaha Turkidu hadda waxay qaataan mashaariicda dhisme ugu badan ee Soomaaliya hadarta waxa moodaa Turkiga waa dal Soomaaliya waxna ka faa'iidaya waxna inuu la qabto ogol halka Soomaalidu u arkaan dadka kale inay dad ayagoo dhibkooda u socda oo haba yaraatee Soomaaliyeed dan ugu jirin aad baa u mahadsantahay